munaasabad lagu sii sabootinayo askar ka tirsan ciidamada qalabka sida oo qayb ka ah isbaahaysiga militariga islaamka la dagaalanka argagixisada ayaa ka qaabsoontay shalay xarunta ciidamada hubka culus ku dhawaad 30 sargaal ah oo reer Djibouti ayaa iyagu ka howlgalaya boqortooyada Sacuudi Carabiya kuwaasi oo qaybna ka ah isbaahaysiga militariga ee islaamka uu horkacayo Sacuudiga waxaana ay ka qayb qaadanayaan dhoolatuskaasi ujeedada ayaa ah xoojinta xiriirka militari ee kala dhaxeeya wadamada xubinta ka ah isbaahaysiga Jamhuuriyadda Djibouti ka mid tahay munaasabadaasi waxa gudoominayay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida sareeya General Zakaria Sheikh Ibrahim waxaana uu joogay halkaasi kuna soo dhaweeyay General Tahir Mohamed Ali oo ah taliyaha difaaca ciidamada qalabka sida Colonel Mohamed Xarsi Umar taliyaha ciidamada hubka culus intaasi kadib taliyaha sare ciidamada qalabka sida General Zakaria kadib markii uu salaan ka qaatay cutubiyada ciidamada qalabka waxa sidoo kale munaasabadaasi kasoo qayb qaatay General Hassan Ali Kamil Colonel Major Ali Subana Shirdon oo ah ku xigeenka taliyaha difaaca iyo arrimo ilaaliyaha safaaradda Sacuudiga Jamil Shisha iyo qaabilsanaha dhinaca militariga safaaradda Sacuudiga General Ali Ben Asmari iyo taliyaha ciidamada ilaalada Jamhuuriga Colonel Mohamed Jaamac Ducaali iyo agaasimaha guud ee booliska qaran Colonel Abdullaahi Cabdi Faarax iyo taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Colonel Wacays Cumar Boqole ayaa iyagu goobjoog u ahaa munaasabada sii sabootinta askarta guud ahaan 30 kuwaasi oo ka qayb qaadanaya isbaahaysiga militariga ee uu horkacayo Sacuudiga General Zakaria Sheikh Ibrahim oo isagu qodbad ka jeediyay munaasabadaasi waxa uu ku xog waramay in ciidankeenu ay ka qayb qaadanayaan isbaahaysiga militariga uu hogaaminayo ee la dagaalanka argagixisada waxaana qodbadiisii noo soo eegay Maxamuud Cusmaan waxa ay tahay in askar ka tirsan ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Djibouti ay ka qayb qaataan howlgalka bariga Sacuudiga kuwaasi oo hormadu ka yahay Sacuudi Carabiya howlgalkani ayaa qayb ka ah dadaalada boqortooyada Sacuudiga si meesha looga saaro fikradaha ururka argagixisada waa in la isku taageero oo laga hortago qatarta xasiloon darida gobolka iyo adduunka oo dhan casharada tababarka ayaa waxay ahaayeen in la diyaariyo howlgal wadajir oo looga hortagayo qatarta halista leh ee wadamadaasi waxa hogaaminaya howlgalkaasi boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay tahay in laga hortago khataraha oo la iska kaashado xoojinta ammaanka ka qaybgalka Jamhuuriyadda Djibouti ee howlgalkaasi ayaa waxa uu yahay rabitaanka xukuumadda Jamhuuriyadda Djibouti oo hormoodka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geele si aan u taageerno boqortooyada Sacuudiga difaaca dhulka si looga hortago dhammaan khatar kasta oo ku soo wajahan dalalka Islaamka Jamhuuriyadda Djibouti iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay wadaagaan xiriir saaxiibtinimo iyo mid walaaltinimo oo aad u weyn oo soo jireena waxa aan alla uga bariyaa inuu sii wado horumarkaasi weyn ee labada wadan iyo labada shacab ee walaalka ah iyadoo ay hogaaminayaan boqortooyada Sacuudi Carabiya Salman bin Abdul Aziz Al Saud iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geele sareeyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakaria Sheikh Ibrahim oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in cutubiyadan dhan 30 ay sitaan iyagu magaca Jamhuuriyadda Djibouti oo loo baahan yahay in ay xoojiyaan dadaalkooda isla markaasna kor u qaadaan magaca qaranka waxaan yiri kelmadda ujeedina waxa weeyaan ciidanka halkan jooga ee tagi doona hawshii loo idmaday ee muddo badan ay soo shaqaynayeen u soo diyaarsanayseen waad ka qayb galayseen dawladaha ururay ee islaamka oo ay hogaaminayso mamlakatul carabiyyah sacuudiya ay hogaaminayso taasi oo ku dhowri doontaan waxa la idinka baahan yahay nabadgelyada araad muqaddasa oo caalamka oo islaam oo dhan wada leeyihiin laakiin xilku saaran yahay isna saaray mamlakada carabiyadu ay hayso waxa adaba aad u tagaysan meesha waxa tihiin ragga ay maka tiradoodan arkayno oo
lagu magacaabo bilcarabiga inaad tahay fasiilo amba segsho aad tihiin inta aad tihiin ma tiidine waxaad xambaarsan tihiin jumhuuriyadda Jabuuti ayaad xambaarsan tihiin oo madaxweynahoodii iyo xukuumaddeedii iyo shacbigeedii nin yar iyo nin weyn rag iyo dumar aad xambaarsan tihiin waxaas haddaba wax yar ma aha ha isku qaadanin inaad yartihiin oo meel yaroo wax yaroo gaban aad qabanaysaan wax alla wixii idinku yimaada waxa ay qabanaysaa waa jumhuuriyadda Jabuuti oo madaxweynaha ka madaxay weeyaan dadka meesha imanka ka soo qayb galaya wax yar baa inaga badan dadka inaga badan oo inaga xoog badan oo inaga xoolo badani dad badan kama imanayaan laakiin kuwa in badan baan ka horeynaa inagu qaybtaan ka qayb galaa halka wixii dambe leenooga baahana batayo baa leenooga baahan yahay haddii laga maarsan waayo isaguna diyaar buu noqon Allah hadullah waxaan daydinahay waa inaad noqotaan leedin idmaday amba leedin dalbaday amba leedinku talagalay inaad qabataan ilowdaan fadhiga hurdayska ilowdaan hawl badan hadal yar aad ka shaqaysaan ogaataan qiimada aad ku fadhidaan meesha taad ku diyaariseenna sanad bay noqon kartaa hadii Ilaahay yiraahdo haddaa hawlina ka baxdaan idinkii ciida kale meesha ka soo qayb galasaaba waqti uu yaraan Ilaahay waqtigiina inuu garab galo sharaf iyo عيسي الله يدكون هوني رجعنا مجيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدب خطبة والكاسي كتشدية جنرال زكريا شيخ إبراهيم وحا انتاسي كدب لقبان قابيه مناسبة دا سيدو كله قبيو يعيارها هيدها يدقنكا لوغسي لو أجاسميس لمرهان تاسين قيب كأه مناسبة سي سبوتينتا سراكيشاسي كقيب قادنية إسباهيسيغا مينتري وهركا أيو سعودي jarankii u sareeyay nala jooga halkan waa inaan moo jaranaa hambal yaan ku nidhaano jaran hawlkara weeyin xilkiisii ka jawaabay markastuu hor joogu noo soo jeedin qodbad jawaabta ugu horeysay noo soo jeediyay waa jeclaada Jabuuti waa jaran dal jecel had iyo jeerna ag joogo annagoo jecel baan la joognaa halkan maanta cimrigii ha jiro jaranaalkeena jaran daacada weeyin jecel diinta islaamka armeega Jabuuti xilligii walu jooga jamiicada ka baxo ilaahay ha jeclaado jannadiisa ha geeyay isagaana jideeyay haddaanay xooga Jabuuti taliyaha aanu jecelahay jaranaal sakariya inta uu hor jooga waligaan jabi mayno sanadkii walan joognana kulba xooga jadiid iyo dhalinjaan cusub oo qarankooga jecel oo u jibaysa difaaca baa soo jarmane cimrigii ha jiro jaranaalkeena ciidamadaasi ayaa iyagu tiradooda ay dhan tahay soddonka ayaa xalay u kicitamay si halkaasi iyo dhabaha diyaaradda iyagoo gaaraya Sacuudi Carabiya hadaba munaasabadaasi sabootinta ee dhabaha madaarka caalamiga ee Jabuuti waxa ku sii sabootiyay General Tahir Ali Ahmed waxana ugu rajeeyay guul dhammaan sargaaladaasi tiradooda ay dhan tahay soddonka iyo gaar ahaan Colonel Maxamed Ibrahim Muuse isagoo hogaaminaya waxa uu rajeeyay guul iyo inay isku duubnaadaan isla markaasina xoojiyaan dadaalkooda wax qabadkooda iyo in ay mar waliba ay iyagu ogsoonaadaan inay xambaarsan yihiin magaca Jamhuuriyadda Jabuuti.